waxaan kormeer ku sameynay amniga magaalada caasimadda ah Garowe halkaas oo aanu tagnay jeegboontiyo tiro badan oo ay ciidamada amnigu ka hayaan shaqadaas oo ujeedkeedu yahay tahay in la dardargeliyo amniga magaalada maadaama bisha Ramadaan ay tahay bil barakaysan dadku ay soo yihiin ay cibaadaysanayaan ayna muhiim tahay in la ilaaliyo amnigooda naftooda iyo maalkooda si ay ugu cibaadaystaan xasilooni iyo nabadgelyo sidaa darteed kormeer baanu sameynay ballaaran waxa weeye si fiican buu amnigu 100% weeye alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waa mahad leh ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu nabadgelyo waanu haysano noo siyaadiyo bisheeda uu noo gaarsiiyo nabadgelyo caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo ciidana waxaan u rajaynayaa dadka waxaan leeyahay bisha inta rajada bisha Ramadaan waxa weeye ciid aan rajaynayno ilaahay uu noo gaarsiiyo nabadgelyo aynu ku ciidno ciid iyo barwaaqo sidaa darteed waxaa amniga loo dardargelinayaa 10kan dambe oo aan aad ugu diyaar garoobayno in ay dadku taajidkooda iyo salaadahooda tan hore iyo tan dambe ay u tukadaan si degan oo xasilooniya waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Nugaaleed sida ay amniga uga shaqeeyaan inay marba si dhiirigeliyaan oo ay u kalsoonaadaan ciidankooda booliska waxaan rabnaa mar walba waxyaabo aan ka shaqeynno waxa ka mid ah inaanu abuurno kalsooni buuxda oo dadweynuhu uu ku qabo booliska haddii aysan dadweynuhu kalsooni ku qabin booliska amnigu ma hagaagayo sidaa darteed waxaan shacabka u baaqaynaa in mar walba ay sameeyaan xiriir dhow ay booliska la sameeyaan oo ay markii ay wax dareemaan ay booliska soo wacaan waxyaabaha ay ka caawinayaan oo amniga ka mid ah ama tala bixinayaan inay soo gudbiyaan annaguna waxaan ballan qaadanaa inaanu ka howlgalno xilli kasta habeenii maalin midkii doonta ha ahaato waxaanu mar walba u taagannahay oo aan u labisannahay oo aan u soo jeednaa inaanu sugno amniga dalkayaga iyo dadkayaga waxaan rajaynaynaa guul iyo isku xirnaan iyo kalsooni ballaaran oo booliska mar walba ay shacabka ku sii qabaan si amniga loo horumariyo waxaan idinka codsanaynaa la'aantiin marna inaysan waxba qabsoomi karin waxaan mar walba idinku dhiirigelinaynaa inaad ku dhiirataan amnigiina inaad ilaashataan si aynu u gaarro guul iyo horumar